Cashirkan waxaan ku baranaynaa maanta how to share printer. Printerka si loo share gareeyo ama loo wadaago. Sababta loo wadaagayo printerka muxuu yahay, faa'iidadiisana muxuu yahay. Horta kow, printerka waa la share gareynayaa. Marka la share gareeyo, printerkaas waxaa isticmaali karo inta network ku xiran, same network ah ayaa maaragtay isticmaali kara. So marka maxaan faa'iidada aan maaragtay aan ka helayno maxay tahay aan share uga dhigayno. Faa'iidada laga helayo waxay tahay in maaragtay qiimaha la dhimo shirkadda haddii marka aad leedahay oo kale. Intii computer walba printer aad usoo gedi lahayd waxaa fiican in hal printer aad soo gadato oo share aad ka dhigto oo la wada isticmaalo si maaragtay costiga oo loo yareeyo. Taas ayaa faa'iidada koowaad ah. Maaragtay advantage-ka ama disadvantage-kiisa wuxuu noqonayaa oo maaragtay ama dhanka kale wuxuu ka noqonayaa in qofkii uu istaago oo printerkii uu taasna xoogaa ayadana maaragtay dhinaca kale ayay ayadana ka tahay. So marka laakiin muhiimadda ugu weyn oo maaragtay shirkad loo furaayo ama wax loo furaayo waxay tahay faa'iido in la helo. Taasaana keenaysa in maaragtay ama hal printer ama laba printer inta la keensado la share gareeyo. So marka qaabka loo share gareeyo ayaa maanta aan isla baranaynaa. Waxaan tegaynaa control panel-ka control panel. Waa kaas kor ayuu nooga soo baxay control panel-ka. Click ayaan ku siinaynaa. Waxaan tegaynaa hardware and sound meesha ku qoran tahay hardware and sound ayaan tegaynaa. Waxaan tegaynaa devices and printer. Waa kana marka inta printer oo computerkan uu leeyahay ayaa maaragtay oo ku xiran ayuu noo sheegayaa marka halkan imaano. So marka intaanu printer computerka ayay ku xiran yihiin laakiin qaar ayaa softwareska ah. Kulli intooda badan software ay hadda demo ahaan ayaan u sameynayaa. So marka kan hadda aniga brother DCB 7010 USB kan ayaan maaragtay hadda aan share gareynaynaa. Waxaa sameynaysaa right click ayaad ku sameynaysaa. Mouse-ka qaybta midiga ayaad click siinaysaa. So marka waxaad leedahay printer properties, printer preferences maana printer properties ayaan click siinaynaa. Markaan siino tab-kan oo share ay ku qoran tahay meeshaan ay share ku qoran tahay sharing meesha ku qoran tahay ayaan click siinaynaa. So marka waxaan leenahay share this printer. Haddaad rabto magac ayaa u bixi kartaa printerka si loo ogaado magaca oo printerka leeyahay qofka suu magaca test ayaan isaga bixinaynaa. Test ayaan u bixinaynaa. So marka waxaan leenahay apply. Okay ayaan leenahay. So marka printerkeena share ayuu noo yahay. So marka share inuu yahay ku ogaanayna marka hore ma uusan lahayn wax maaragtay user ah. Hadda fiiri laba user ayaa maaragtay sawirkooda ayaa noola soo dhigay. Taa waxay noo cadeynaysaa printerkan inuu share yahay. Macnaha in la use gareyn karo user badan ay isticmaali karaan. So marka taas ayaa noo cadeynaysa inuu printerka share yahay. Waan ogaan doonaa qaab kale oo maaragtay loo isticmaali karo. So marka waxaan kaloo sameynaynaa control panel-ka ayaan ku noqonaynaa. Control panel ayaan tegaynaa. Waxaan tegaynaa network and internet. Waxaan tegaynaa advance. Waxaan tegaynaa network sharing center-ka. Waa kan change advance sharing settings meesha ku qoran tahay ayaa click siinaysaa. So marka private-ka ayaan click siinaynaa. Turn on network discovery-ga on ayuu noo yahay. Kan kalena waa kana marka turn on file and printer sharing mujeedaa off ayuu naga yahay. So marka tab-kan waa inaad on ka dhigtaa. Marka hadda marka printerka share hadduusan tab-kan on ku ahayn option-kan on uusan ku ahayn hadduusan kaa yahay oo kale turn off uu kaa yahay file and printer sharing-ka ma ku shaqeynayo. So marka turn on file and printer sharing ayaan ka dhigaynaa. Close ayaan iska dhahaynaa. So marka hadda printerkeena wuxuu noo yahay share ayuu noo yahay. So marka inta network ku xiran same IP address haysta ayaa isticmaali karo printerkan. So marka same ku ogaanayna. So marka qofka markuu rabo inuu print gareeyo wuxuu sameynayaa /PC1 waxaa noo soo baxayo enter ayaan leeyahay inta sharing jirta ayuu
hadda userska share ayuu noo yahay printerki oo aan share garaynana waa kana oo test aan u bixino magacii aan u bixinana waa kana mujeedaa so markaa rabti inaad printer sameyso double click ayaa ku samaynaysaa so marka waa kana marka waxaan leenahay set as a default printer ayaan leenahay so marka settings printers default means that Windows will stop manage on your default printer okay aan leenahay so markaas hadda defaultiga noo ah printerkeena muxuu ahaa maaragtay waan isticmaali karnaa marka waa la share garay karaa qof walbo oo maaragtay oo sim network ah printerkan waraaq ayuu usoo dirsan karaa uu ka baratigaraysan karaa waxaa laga yaabaa inuu ground floor uu yaalo dabaq hadduu yahay buildingka waxaa iska dhigi kartiin qaybta dhexaa la dhigi karaa printerki soo marka qaybta kore inta soo print garaystaan ay inta soo degtaan ayay ka qaadanayaan qaybta hoosena inta kor aadaan ayay kasoo qaadanayaan so marka haddii dhowr printer ah haysatid dhibaatada ugu weyn waxaa waaye qof walbo iyo printer haddii loo sameeyo shirkadii maaragtay kostigeeda kosti badan ayaa ku baxayo so marka qiimo badan ayaa lacag badan ayaa uga baxayso marka saddex computer afar printer aan dhehe ama saddex printer inta la keensado ayaa waxaa la sameeyaa share si loo yareeyo kostiga maaragtay saas ayaa maaragtay hadda printer sharingka loo sameeyaa aad ayaan u mahadsantihiin maaragtay inaa ila daawataan videogeyga waana idinkaga mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu